kalfadhigan baarlamaanka maanta ujeedadiisu ahayd in mudanayaasha baarlamaanku ay dhageystaan warbixin madaxda sare ee dawladda ku meel gaarka ku saabsan heshiis ay dhawaan ku wada gaareen dalka Itoobiya ayaa ugu horeyntii waxa furay gudoomiyaha baarlamaanka oo hadalka ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee ku meel gaarka Mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed afhayeenka baarlamaanka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoore iyo ra'iisul wasaaraha mudane Nuur Xasan Xuseen waxaanu xilalkayaga u gudanaynaa sida ku cad axdiga waxaana ku heshiinay inaan cidna lagu faragelin howlaha qowl maalmeedkeeda gudashada xilka uu axdigu u soocay ra'iisul wasaaruhu waxa uu aad ugu dheeraaday in heshiiskani uu muhiimad gaar ah u leeyahay dawladda ku meel gaarka maadaama ay ku jiraan qodobo anfacaya ummadda waxaana uu xusay in 5 wasiir oo cusub lagu beerinayo golaha wasiirada taasi oo xildhibaanada qaarna ay aad ugu riyaaqeen ra'iisul wasaare Nuur Xasan Xuseen waxa uu carabka ku adkeeyay in madaxda dalku ku heshiiyeen hirgelinta qodobadii lagu gaaray heshiiskii mucaaradka iyo dawladda ku meel gaarka ku dhaxmaray dalka Djibouti isagoo ka codsaday beesha caalamku inay ciqaabaan cidda diidan ka talinta aayaha ummadda Soomaaliya waxaanu beesha caalamka ugu baaqaynaa inay si buuxda noogu taageerto heshiiskan isla markaasna culays kasta oo loo baahan yahay iyo ciqaabba saarto ciddii carqaladaysa habsami u socodka masaarka nabadeed madaxweynaha dawladda ku meel gaarka mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa markii uu mikrofoonka qabsaday ra'iisul wasaaraha kadib waxa xarunta shirku isku bedeshay meel fawdo ah oo aad moodo inaysan mas'uuliyiin ka hadlaynin waxaana uu buuqa cirka isku sii shareeray oo hanjabaad uu gaaray markii madaxweynuhu uu ku hafay Puntland isagoo doonaya inuu ka hadlo danaha qaranka Soomaaliya waxaan leeyahay danta Puntland waxa ku jirta ama Puntland meel kale jirtaa danta qaranka ee dalka way maqla waxay ugu fadhiyaan albaabka ka baxo dawladda Alwariya inshaa Allah waxay ugu fadhiyaan aamusa raasha qaybaysa macalin jeesa waa mas'ad kaayta lana meesha ma fadhiyaan wadaa cidka isaal xun oo gurigooda la haysto adiga kaaga saxweynaya jirnaa waxa أنا واحد اللي راعي ينقل إسلام وحاجاتية ما يمريتان وسائل ينقل يسمى قريتان فوق راس عليه هذا إسلام الليل وحلاها يا شريتان واحد ميسانه ينقل آن ورهن إلى استغنيتان وTFC دغنيتان وصومالي حتى الولد نولد أنا ميسانه سواء واحد روانا ورميه أنت ما يليشان كلام يسوي مرخانتيرا أي ما أنت واحد كواهاتان برلمان كواسولا إن يريد بحرين معه مسؤولية على كاتماتا واحد يكمل وضعتا بطلاب سلطان أيوة لقي سمعي madaxweynaha Soomaaliya ayaa buuq badan kadib u sheegay xildhibaanadu inuu soo koobayo hadalka isla markaana heshiisku yahay sida uu ra'iisul wasaaruhu ka hor akhriyay baarlamaanku discipliin isticmaal أنا هذا هو قاضي لكن هذا المعلى الذي يشتري كل وحي نركوه شيء صدق أيضا أو إصدار التاجن واللي يأخذي ليس الوسارة إلى الأخرى حتى يحطها يعطي في عنها لكن هذا يشتري هو قال لنا يا مركان وكاشنا سيدا ستانتا وماشى الهيك أيها الله حسين عبدي BBC مقدشو